weligaa hore misuu aragtay in aragga shooc kaaga furo mise cawaaf kadib waxyar kadib cawaafkaas iskeeda iskaga dhamaaday? waxaa laga yaabaa inay xaaladaas ay ku keento madax xanuunka dhammaan aan wada naqaano ee loo yaqaano migraine, taas oo mar qaar la socon karto in aragga shooca uu kaaga furo. maanta muuqaalkeena midaas ayuu ku saabsan yahay. daawasho wacan. mar kale oo anigoo Dr. Axyaa ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. madax xanuunkan dhammaan magaciisa dhagaheena ee ku dhacay ee loo yaqaano migraine ayaa inta badan asxaabta aad iga codsaday inaan kaga hadlo muuqaal aan kaga sameeyo, taasoo laga yaabo in badan inay asxaabta ama horey u arkeen madax xanuunkaas oo ah madax xanuun inta badan dadka bulshada ay magaceeda aad u maqashay, halka dadka qaar ay aad ugu dhiban yihiin, xitaa aniga marka qaar aan dareemo, halka dadka qaar ay mar walba ay ku soo laabato. madax xanuunkaas ayaa marka qaar la socon karo in aragga cawaaf kaaga furo. cawaafku aragga ku furayo ayaa inta badan ka bilaabanayo meel dhexe ka bilaabmayo aragga dhexdiisa, kadib gees fidayo, kadib iskooda 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo laga yaabo inuu ku dhamaado. dadka qaar ayaa markii xaaladan araggan cawaaf uu ka galo waxyar kadib madax aad u la xanuuno, weliba madaxa dhinaca hal gees oo la xanuuno, halka dadka qaar aad u nasiib badan yihiin oo aragga uuna cawaaf ka galo kadib madax xanuun uusan wehelin. madax xanuunkaas loo yaqaano migraine ayaa dadka qaar isugu darsoomi karo oo ah in madaxana uu la xanuuno araggina cawaaf uu la noqdo, halka dadka qaar hal dhinac ay noqon karto oo ah in aragga uun cawaaf ay noqoto laakiin madax xanuunka uusan raacin. labadaas nooc ayaa loo qeybiyaa, mid madaxa kula xanuuno iyo mid la socoto aragga cawaaf. labadoodna kala gooyna way noqon kartaa. dadka badanaa lagu arka xaaladan ayaa badan family ahaan u dhaxlo oo waxaa laga yaabaa dhaxal ahaan inay xaaladan ugu keentay, halka dadka qaar waxyaabo qaar ay aad ugu kicin karto, sida in markii uu qofka isticmaalo kala kafeynka mise shaah oo kale dadka qaar aad ugu kicisaa. sidoo kale waxyaabaha sababi kara xaaladan ayaa kamid ah cadceed oo kale, dadka qaar markii cadceed mise iftiin oo kale indhahooda ku dhaco way kaga sii dari kartaa. dadka qaar xataa waxyaabaha ku kiciyo waxaa kamid ah sida jiiska oo kale ama loo yaqaan caanaha labeynta oo kale la fadhiisiyey inay xaaladan markay isticmaalo ay ku badanayso. marka waxyaabaha muhiimka ah oo qofka haddii uu fahmo waxyaabaha ku kicinayo, haddii uu iska dhaafo laga yaabo inuu muddo ku soo laaban, halka dadka qaar xoogaa nasiib markay ay sameeyaan ay ka dhamaanayso. sababtoo ah xaaladan marka qaar waxyaabaha aad u sii kordhiso inay qofka uu ku sii kacdo waxaa kamid ah stresska oo kale ama walwalka oo kale, dadka qaar aad ay ugu kicisa. madax xanuunkan loo yaqaano migraine nooc kale waxaa jira la yiraahdo ocular migraine oo isha u gooni ah. marka qaar waxaa laga yaabaa nooca migraine-ka isha u goonida ah midda aan wada naqaan madaxa dhan ah inay qofka wareero nooca ay tahay. waxyaabaha lagu kala saari karo nooca ay tahay waxay tahay haddii madax xanuunka uu yahay nooca generalka ah oo la wada yaqaano commonka ah, waxaa la yiraahdaa common migraine la yiraahdaa. midaas inta badan labada indha ay ku sameysaa cawaaf shoocaas inay ku furto, laakiin midda badanaa isha uun ay tahay wuxuu qofka uu ku fahmi karaa hal il markuu iska xiro isha kalena u fiican tahay. marka taasna waxyaabaha lagu kala fahmo waaye migraine-ka ama tii isha keliya mise waa tii madaxa. badanaana qofka cilada badanaa ay ka jirto waxay tahay qaybta dambe ee madaxa ayuu ka imaanaya haddii ay tahay midii guud ahayd. marka waxyaabahan qofka arkaayo badanaa waxay ka imaanaya qaybta dambe ee madaxa, taasaa keenaysa inuu qofka waxyaabahan u muuqato. haddii aa horey isugu aragta xaaladan qaybta commenti igula wadaag. waxaa inoo baalinaa muuqaalka xigo. waxaa idin rajaa caafimaad iyo indhafayow.